magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxa ay soo martay marxalado kala gedisan maamulo isbedelay iyo mashaariic horumarineed. Cadaado waxa ay martigelisay in ka badan 10 beelo Soomaaliyeed ah kuwaasi oo ay u dhaxaysay culada sukeeye waxayna magaalada Cadaado nasiib u yeelatay in dibadda loogu taago maamulka Galmudug oo ay ku midaysan yihiin beelaha degan magaalooyinka Gaalkacyo, Dhuusamareeb, Caabudwaaq, Cadaado iyo deegaano kale. Dhismihii maamulka Galmudug kadib waxa Cadaado lagu doortay mar kale Axmed Ducaale Geel oo madaxweyne u noqday maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. Inta ay Cadaado xarunta baarlamaanka Galmudug martigelinaysay dhismaha maamulka Galmudug iyo mashaariicda horumarineed ma jirin wax dhibaato ah oo ka dhacay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug kuwaasi oo qalqal galin karay xubnaha dhisayay ama dibadda u taagayay maamulka Galmudug ee haatan khilaafku ka dhex jiro. Dhammaan inta aan soo xusnay ee marxalado ay soo martay magaalada Cadaado waxa ay lahayd hal maamul kaasi oo uu hogaaminayay Cabdiraxmaan Abdullaahi Tootoole wixii ka dambeeyay bilowgii sanadkii tagay ee 2018 maamulka degmada Cadaado waxa uu ka soo muuqday shirar dhaliilsan maamulka Galmudug oo uu hogaamiyo Axmed Ducaale Geelaxaaf. Ugu dambeyn maamulka degmadu waxa ay taageero u muujiyeen xulufada Maxamed Xaashi Carabey iyo Cali Gacal Casir waxayna u suurtageliyeen in Cadaado ay mar kale ku doortaan Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka barbar dooran Axmed Ducaale Geelaxaaf. 22 bishii December ee sanadkii tagay ee 2018 ayaa Axmed Ducaale Geelaxaaf waxa uu xeer madaxweyne ku kala diray golaha deegaanka ee degmada Cadaado waxaana sidaas oo kale la soo magacaabay golo deegaan oo cusub. warqadda dhisida iyo kala diridda ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf ayaa ku astaysneed LR 14/2018 isla maalinka 22 December waxa isna warqad ka soo baxday xafiiska Axmed Maxamuud Baasto ee magaalada Cadaado taa oo lagu beeninayay in la kala diray golaha deegaanka ee degmada Cadaado. Dhammaan warqadahaasi waxay u muuqdeen kuwa diiday iyo doonayda siyaasiyiinta oo kaliya ku eg balse aan loogu daneyneynin shacabka Galmudug ee ku dhaqan magaalada Cadaado. dhanka kale gudoomiyaha xilkiisa lagu muransan yahay Cabdiraxmaan Abdullaahi Tootoole oo ka qayb galay xaflad loo sameeyay murashax Farxaan Maxamuud Dhoore oo ahaa murashax shaaciyay inuu yahay nin u taagan xilka gudoomiyanimo ee degmada Cadaado ayaa waxa uu shacabka ugu dhaga waramay in aanu marnaba ka tanaasuli doorin xilkiisa ilaa dadka deegaanku ay la yimaadaan qof ay ka dhiganayaan mas'uulkooda isla markaana ay u aaminaan aayaha magaalada Cadaado. waxaan diyaar u nahay insha Allah cid kasta oo barnaamijkan ku guuleysata inaan kuna wareejino xilka lana shaqeyno wixii aan dhaano oo ugu horeynana aan tusno oo aan la qabano waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo maanta meesha ay wax joogaan oo in musharax waliba yimaado hadda meeshan waa markii saddexaad aan qiyaasay aniga dad musharax degmaana leh aan inta aan uga qayb galay in meeshan wax yimaadaan waa laga soo shaqeeyay dadka deegaankan oo mas'uuliyiinta hadda fadhida ugu horeeyo oo intiina ka mid yihiin iyo dad kale oo fara badan ayaa ka soo shaqeeyay nidaamkii xilligaas la sameeyay qofba qof ka soo dhaxlayay qofba qof ugu imaanayay ayaa maanta halkan wax keenay farxaana asagii uu daba joogaa oo inuu asna sidii meeshiis uu ka galo rabaa iyo ragga kale oo la mid ah walaalaha badan waxaan leeyahay marka wuxuu iskama imaanay waa la keenay dadka deegaankaana kasbay dadka deegaankaana ka shaqeeyay annaguna waxa tusaale u nahay inaanu diyaar u nahay inaanu Cadaado ay doorasho noqoto oo qof kasto Cadaado gudoomiye ka noqonaya oo maayar ka noqonaya oo noqdo mid la doorto uusan ahayn mid si kale ku yimaada sababtaas ayaan waxaan u niri waan talaasulaynaa aniga hadda idin hortaagan musharax maahi musharax gudoomiye degmada Cadaado xilligan maahi aniga musharax gole deegaan maahi 5 sano ayaan soo ahaa waa la ila soo shaqeeyay waxaan qaba kare waa qabtay waxaan qaba waayeen nin qabtaa inuu yimaadaan rabaa oo adinkuna aad la shaqeyseen marka waxa aan u talaasulayaan waa inay Cadaado meesha hadda ay joogto ay ka sii fiicnaato haddii la waayo doorasho dadka kursiga waa jecel qof ka tagaya ma jiro qof kale uga tagaya ma jiro qof la doorto un baa uga tagaya hadda maanta waa ismaqlaynaa qofka soo dooratiin baa kursigaas uga tagaynaa
xilka gudoomiyaha degmada Cadaado waxa uu ku ekaa 31 December sanadkii tagay 2018 haddana waxaanu ku guda jirnaa bishii 4 ee Abriil sanadka 2019 taa ayaana cadeyn waxa ay u tahay in gudoomiye Tootoole uu ka dhabeeyay hadalkii uu ku dhaga waramay shacabka degmada Cadaado qaar ka mid ah waxgaradka degmadan Cadaado ayaa waxa ay sheegeen in Cadaado aanay maamuli karin ruux waqtigiisu dhamaaday waxa ayna maamulka xilkooda sharciga ah dhamaaday ugu baaqeen inay u tanaasulaan ayaha degmada Cadaado dad kalaha ku far adeegay haddana alxamdulillah rabbil caalamiin barwaaqo haysataa way fiican tahay laakiin waxaad moodaa markaan run idin sheego oo aan dadka daneeya degmada Cadaado la hadlo inay haysato hal dhimata caanaheed waxa la yiraahdaa waxaan soo kordhayn tusaale ahaan 31 December waxa ku ekaa dekreeto loogu talagalay in dhowrka sano labada sano u dambeeyay in loogu shaqeeyo degmada oo ku magacaawna Tootoole waxaan rabaa oon u sheegaa aan warbaahinta halkan uga sheegaya ragga maamulka degmada ahaan jiray Cadaado hadda waa si haystayaal intaysan noqon ha ka shaqeeyeen degmadu in system iyo nolol hesho waxa galmudug inta badan loo burburiyay oo awoodda loo saaray inay burburto waxay ahayd inaan la helin sharciyad dadka xilka degmada haya Cadaado kale aysan cid sharci lagu bedelo in la waayo waxaan soo jeedinayaa marka dadkan hadda tiraahdo dadka isfiiriya qofba wuxuu qabtan hal la arko taa hor dadka dhan la shaqeeyo aniga galabta arinta aan ka hadlo ku saabsaneed magaaladan iyo systemkan in si dawliyo dadkuna u shaqeeyaan maamulkaahu shacabkuna u shaqeeyo si shacaba taasa sax waxaan soo jeedinayaa in dadkii degmadan lahaa Cadaado lahaa inay ka shaqeeyaan in dadkan degmadan in sharci lagu joogo oo sharci la isku doorto oo systemka dawliga oo noqdo mid dhaxal ah oo soo jireena oo isdaba jooga oo abtiris u baahan yahay maamulku tusaale ahaan hadda waxa la yiri hal keeno degmadii dadkii bedeli lahaa tii hore xagee ka imaanay wuxuu yiri xagee maxay ku nuugtaa maxay ka nuugtaa systemkan raga ku tala galay inay wax ka dambeeyo sharci la waayo si kastaba ha ahaatee magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa bishii afraad waxaa maamula mas'uuliyiin waqti xiloodkoodii dhamaaday jila jaamac jile warbaahinta dalsan magaalada Cadaado